بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دawdaha qiimo badanow ku soo dhow janaalka Ibrahim Albalawi. Casharkan waa casharkii labaad ee barashada KineMaster. Casharkii koowaad waxaan ugu soo hadalnay sida loo soo degsado KineMaster iyo sida loo furo ama sida loo saxo. Haddii aadan soo daawan linkiga kore aad ka soo daawan kartaa. Hore ay u sii wadeen marka. KineMaster ayaa soo kacsanayna waxaan ku dhufinaynaa calaamadan balasta ah. Kadibna saddexdan cabir ayuu leeyahay. cabirkan 16 ku qoran tahay waa haddii aad ugu baahan tahay muuqaalkaaga inaad dhigto YouTube, Facebook waxa adeegsanaysaa 16 iyo 9. haddii aad ugu baahan tahay inaad muuqaalkaaga dhigto TikTok, Snapchat, Like iyo wixii la mid ah waa inaad adeegsataa 916 oo dhaxda ku jirto. middan oo hal ku qoran tahay ayadana waxa loo adeegsanayaa Instagram. waxaan ku dhufinaynaa hadda 16 iyo 9. kadibna waxaa soo dooranaysaa background meeshan qoran tahay. kadibna backgroundadan mid ka rabtid adeegsanaysaa. tusaale ahaan midkan kadibna calaamadda tigta ayaa saaraysaa. hadda waxaad dhex joogtaa KineMaster. aan ku baro qaybaha uu leeyahay KineMaster. qaybtan hoose waxaa loo yaqaanaa timeline. waa meesha aad ku jarjari lahayd muuqaalkaaga. qaybtan madowga ah waa meesha aad ka arki lahayd muuqaalkaaga iyo waxyaaba aad sameynayso waa meesha aad ka arki lahayd. qaybtan qoran tahay media hal mar ay adeegsanaysaa. haddii aad background lahaan aad tahay oo markii aad soo doorato cabirka background aad soo dooranin ayaad hal mar adeegsanaysaa media laha. tusaale ahaan kan haddii backgroundkan aad iska tooro fiiri delete aan taabto background ma haysti media bis ay shaqeynayo. media ku dhufanaya kadibna backgroundka aan u baahanay soo dooranaya kadibna tigta ayaa saaraya. meeshan ku xigto oo ah layer waa meesha ugu badan ee aad adeegsan doonto. meeshan ugu horeyso oo media ah waxaad soo gelinaysaa sawir iyo video haddii aad u baahan tahay waxaad soo gelinaysaa meeshan media ah. effects waxaad u isticmaali doontaa haddii aad ugu baahan tahay muuqaalkaada meelo ka mid ah inaad qariso effects aad adeegsanaysaa. overlay waxaad ka helaysaa waxyaabaha aad soo degsatay KineMaster ka soo degsatay. text waxaad ugu soo darsan kartaa qoraal. handwriting meeshan qoran tahay waxaad ugu soo darsan kartaa qoraallo xariiq oo kale sida hadda aad u jeedaba. sidoo kale meeshan qoran tahay voice codka aad ka duubi kartaa. waayahay qaybtan qoran tahay audio maqalada ayaad ka soo gelinaysaa. qaybahan kale waxaad ka samayn kartaa sida animationska. haddii aad ka laabnayso undo redo halkan aad ka helaysaa. waa kaas waxaan filayaa hadda inaad fahantay KineMaster qaybihiisa aadna diyaar u tahay inaad bilowdo jarjaridda. casharka soo socda aad ku baran doontaa insha Allah. fadlan haddii aadan horey nagu soo biir adigoo taabanaya subscribe gambalkarkaana furanayo. waayo waxaad meeshan ka baranaysaa video editing computer iyo mobile anigoo isticmaalayo.